jameecada masjidka aqwaanka ee degmada warta nabadda waxay isku diyaarinayaan salaada taraawiixda. imaamka salaadu waa wariye Maxamed Aadan Ibraahim oo loo yaqaan Onkod. muddo dheer ayuu ka mid ahaa imaamyada tujiya taraawiixda masjidkan. qaaluu anu'minu laka wattaba'aka alladhaluun qaala wamaa cilmii bimaa kaanuu ya'lamuun in xisaabu. codka uu qur-aanka ku akhrinayo iyo luuqda macaan waxay dhaxal siiyeen in loogu yeero sudaysiyare oo ka dhigan in jameecada masjidku ku xasilaan salaada xilliga uu tujinayo. 2003-2004 ilaa xilligaas ilaa hadda masaajidda kala duwan iyo magaalooyin kala duwan ayaan ka soo tujiyay oo sida magaalada Muqdisho iyo magaalada Nazareth oo wadanka Ethiopia ah ilaa hadda 17 sano 16 sano ayaan jeclahay inay ka soo wareegtay ilaa xilligaasna waa tujinay. Sudaysi in ay dadkii ugu naanaysaana ma ahan wax shal iyo darad bilowday xilligaas aan ku sheegay 2003-2004 ayaa waxa dhici jirtay in maadaama aniga qiraa'ada amaba sheekhyada culimada aan aad ku jeclahay oo koow yahay Sheekh Cabdiraxmaan Al-Sudaysi imaamka xarameynka ayaan aad ugu deysan jiray codkiisa ayaan wax badan dhageysan jiray waaga yara askar raadin jiray Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu uu caawiyay inaan codkiisii aan keeno inta badanna quraanka marka akhrinayna qaabkiisa ma aan qaab kale xataa aan u akhrin karin. quraanka ayuu bartay isagoo yar waxuuna soo baray ubad badan isagoo soo ahaa macallin dugsi quraan inta uusan noqon saxafi ka shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan. laakiin Soomaaliya waxaa jirtay laga soo bilaabo 2005 2006 2004 saan jeclahay waxaan ahaa macallin caawi oo kaleeto ama macallimaad si Soomaalidu u taqaano. xilligaas ayaa waxaan quraanka dhigi jiray gelin macallimo aan dhigi jiray ama mar waxaa dhici jirtay macallinka oo koowaad dugsi iska maamulay ama iska leh inaan macallin labaad kala shaqeeyo oo ah dugsi aan ahayn dugsi aan wax ku soo bartay. markii la qaxay oo 2006 dabayaaqadeedii iyo 2007 bilowgeedii Ethiopia markii aan tagay waxaan dugsi ka furtay halkaasi 2007 bilowgeedii ilaa 2011 dhamaadkeedina oo bishii 11aad aan jeclahay bishii 12aad inaan ka soo baxay halkaas muddo 5 sano ahayd taqriiban 5 sano runtii dhowr arday oo quraanka halkaas ku bartay ayaa jirtay arday badan ayaa ka aflaxday. wariyanimadu waa xirfadda haatan uu ku shaqeeyo wuxuu akhrinayaa warkii saacadda ee raadiyaha Shabeelle oo uu soo saaray isagu. wariyaha Shabeelle Cali Gaab oo ku sugan Gaalkacyo ayaa sheegay in roobkaasi oo watay daadad ay ku dhinteen ilaa 2 ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka. sidoo kale waxa uu tilmaamay in roobku ay saameyn ballaaran ku yeesheen guud ahaan bacadweyn gaar ahaan isku socodka dadka iyo gaadiidka. anigu waxaan ahay Onkod Aadan bashkacdiya farsameynay salaamo. waxa uu isku wataa shaqadiisa wariyanimo iyo tan imaamnimo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan isagoo subaxiina hawlaha saxaafadda ka shaqeeya habeenkiina ka mid ah imaamyada salaada ka bixiya masjidka aqwaanka ee degmada warta nabadda. marka ay timaado bisha Ramadaan waxaan inta badan ka codsadaa maamulka warbaahinta ee shabakada warbaahinta Shabeelle oo aan iminka ka tirsanahay inaan imaamnimadeedii iyo ayagoo iyo maamulkii shabakada warbaahinta iyo shaqaale inta badan in Jaanis la isiiyo shaqadii culeyska badanaa ayaba laga yareeyo oo sida wararka aan u raajay maadaama anigu wardoona ah ama reporter in shaqada culeyskeeda laga kala yareeyo aan Jaanis ama fursad inta badan aan ku qaato inaan quraankii maalintii akhriyo ama diyaariyo si habeenkii taraawiixda waxa la ogsoon yahay qofku ma dhihi karo anigu 100% quraanka xaafidaan ku ah ma dhihi karo laakiin qofkii Ilaahay waa uu bara waan xifdisiyaa haddana waxa mar walba baahantay dadaal iyo ka warqab iyo mar walba joogteen inaan quraanka diyaariso. wariye Onkod wuxuu tusaale u noqonayaa in qof kasta uu shaqaysan karo adduun iyo aakhiro isagoon dhanna hilmaamin. Maxamed Ciise Kona, Shabeelle TV, Muqdisho.